ninkan aa ujeedaa waa nin aad u weyn oo safartan yar ayaa qabtay asigana way xirxireen laakiin waa uu soo kacay wixii lagu xirxiray wixii oo dhan wuu burburiyey kadibna uu istaagay meesha dhanna waxay noqotay meel burbursan oo kale balse ninkan ay kusoo tuuro warankiina wuxuu leeyahay sida cirbid oo kale mar kale ayay qabteen wayna jiideen wayna seexiyeen ugu dambeyn arkaan wuu yara suuxay waa la soo qaaday waxaa loo soo qaaday dhanka iyo magaalada ayaa la keenay kadib waxaa loo soo wadaa dhanka iyo boqorka xaggiisa oo uu ka baxsan soo diristay gurigii boqorka 2 askar ayuu qabtay iyo ayuu ku soo riday kadibna waa kan gabadhii amiiradeeda ayuu ka soo badbaadiyey meesha daba ka kacay hoolkii boqortooyada sigana waa isku dayna badbaadiyo waa tahay marka fikradda soo la yimid waaba kan uu kaadii ku bilbilay gidan dabdamiso ugu dhigi kaadida sidaas oo boqorkii ku badbaadiyay dadkii noo saabiyeen marka waa la casuumay suumaadii kadibna marka waxaa loo dhisayaa tiyaatar waa loo dhisayaa la leeyahay soo fiirsada kadib meeshii waa la soo weeraray boqortooyadii qolyii kala soo weeraray qolyihii kale la yidhaahday orodii ninkaas la soo dagaalan markaadii ugu tegay oo leeyahay aniga dagaal iyo wax marabna naga daaya iska dhaafa bas ayaga ka diideen waxayna bilaabeen inay madaafiicda u rakibtaan kadibna ay ku dhuftaan kanonkii caloosha feeraha waa uu koceli halkaasna maraakiibtii buu ku burburiyey xarkii maraakiibta u qabtay ayaga dhanba soo wada jiitay askartiina way u sacbiyeen dhammaantood